waxa jira asbaabo inaga caawin kara inaynu guul gaadhno guusheenu sida ay u midho dhal u noqotana waxa jira waxyaabo aadan hore u filanayn laakiin se guul si degdeg ah ku gaarsiin kara ama noloshaada bedeli kara waxaan soo qaadan doonaa bal caadooyinka yaryar ee qofka noloshiisa wax weyn ka bedela waxa loo yaqaan atomic habits waa caadooyinka yaryar baa loo yaqaan marka hore caado hadaynu isla eegno Soomaalidu marka waxay tiraahdaa qofkaas caado ayuu leeyahay waxa soo qabatimay waxa yaani waa wuxuu qofku joogtay oo lagu yaqaan weeyaan caadadu caado marka qeexideeda kooban waxa weeyaan waa ficil iyo habdhaqan uu qofku la yimaado si joogta uu la yimaado isagoo oo aan waqti badan iyo dadaal badan toona aan gelinin marka caadooyin waxa jira haduu qofku joogtayo noloshiisa wax weyn ka bedeli kara caadooyinka yaryar hadaan tusaale soo qaadano dadka ay noloshooda wax weyn ka bedelaan waa ninka loo yaqaan James Clear ee qoray buugga loo yaqaan Atomic Habits buugga ka warrama caadooyinka yaryar ee la magac baxay Atomic Habits ninka waxa loo yaqaan James Clear ninkaas ayaa nooga warramaya caadooyinka yaryar ee nolosha qofka bini'aadanka wax ka bedelaya ninkaasi waxa uu yiri markii hore waxaan ahaa uu yiri website baa samaystay uu yiri qoraal yaro kooban baan ku qori jiray qoraalka yaro kooban maalintan waqti yar helaba qoraal baan qori jiray article yaro kooban baan qori jiray waan soo gelin jiray muddo kadib dad baa igu soo xidhmay uu yiri waxaan arkay uu yiri dadka qoraaladayda inay dad badan ku soo xidhmayaan oo ay akhrisanayaan ka soo falcelinayaan saddex sano kadibna waxaan arkay buu yiri inay dad farabadan inay laazimeen oo joogteeyeen akhrinta qoraaladeeda anna waxay aan ku khasbanaaday buu yiri in aan dadaal dheeri sii geliyo oo aan qoraalo tayeysan oo si fiican soo diyaariyay aan bulshadii igu xidhneed aan la wadaago markii dambe heer waxa uu gaaray qoraaladiisii uu website-kiisa soo gelin jiray ay qaateen majalladaha caanka ah sida Times iyo Forbes oo kale ay baahiyeen waa wax cajaa'ib ah isagu waa la yaabay marka halku dadaalkiisu maray inuu qoraal yar oo aan waqti badan gelin jirin in caalamka majalladihii ugu qaalisanaa ee muxuu ahaayay aadka muxuu ahaayay loo akhriyo jiray lagu dhaxarko laga dhax akhristay wuxuu ku leeyahay muddo yar kadib haddana waxa ila soo xiriiray email la soo diray shirkadihii ugu waaweynaa uu ku leeyahay ee ka jiray geeyga isagoo ku noolaa wuxuu ku leeyahay waa la soo hadlay codsiyo la soo diray inaan shaqaalahooda tababaro siiyo kadibna waxaan is arkay uu aniga oo muddo kadib shirkadihii u shirkado waaweyn oo ku yaala Mareykanka iyo Yurub shaqaalahoodii lecture u jeedinaya marka wuxuu qoray sababtu uu qoray baa ahayd buuggan la yiraahdo Atomic Habits wuxuu bulshada la wadaagu yiraahdo waxa jira caadooyin yaryar oo qofka bini'aadanka ah noloshiisa mustaqbalka wax ka bedeli kara hadii uu joogteeyo oo aan hadu doono waqti badan bayaanu gelin hadu 24 saacadood hadu hal saac geliyo oo uu joogteeyo laakiin muddo noloshiisa wax ka bedelaya tusaale boqolkiiba hal hadaad noloshaada isbedel ku sameeysid maalintiiba 24 saacadood sanadkii waxa laga yaabaa intaas oo percenti in muxuu ahaayay dadaalka iyo muxuu ahaayay horumarkan naftaadu inuu kor u kici karo hal sano kadib hadii aad dib isu qiimeysid marka maxay nagu waajiba in aynu la nimaadno wax kasta oo aynu nolosheena aynu ku dhisayno iyo dadaal kasta oo aynu nolosheena ku dhisayno aynu ugu horeysa in aynu skills iyo xirfado cusub iyo aqoon cusub in aynu bil kasta iyo sanad walba inaynu nafteena ku soo kordhino taasina waxay noo horseedi doontaa mustaqbalka inaynu guul wanaagsan gaadhno haddaba sidee baad ku gaari kartaa caado yar oo aad ka dhigatay halbeeg aad ka dhigatay oo joogtisay sidee bay guul ku gaarsiin kartaa marka hore caado dooro hadii aad doonayso inaad expert ku noqotid cilmiga IT-ga iyo programming-ka iyo muxuu ahaay networking-ka aad doonayso inaad caan ku noqotid oo xariif ku noqotid marka hore go'aan qaado waxaad qorataa muxuu ahaayay waxyaabaha lagaaga baahan yahay qoro istabiskaad raacisid qoro diyaarso hadhow toole muxuu ahaayay maalin kasta waxa aad sameyn kartid caadadaad ku soo kordhin kareysid ee aad cilmiga IT-ga ka baran kareysid liistaysoos oo qoro dadaalna geli saacad ama 30 minute oo kaliya 30
cisho ama sanad kadib waxaad arkaysaa adiga oo khabiir ku ah oo sanad hore halkii aad gaarsiisnayd ay wax weyn si ka bedeleen hadaa doonaysid inaad baratid hab qoraalka sida wax loo qoro ee qoraalka loo sameeyo hadii aad iyadana aad sameeysid oo aad bilowdid iyadana meel fiican baad ka gaaraysaa hadii aad doonaysid in aad cilmi kaleba ama skill kaleba aad doonaysid inaad ku shaqaysatid mustaqbalkana waxa laga yaabaa in hadii aad joogtaysid waxa aad dooratay in aad horumar gaadhid waxa kale oo ka caawinaya in aad caadada yari ay meel weyn ku gaarsiiso waxa ka caawinaya caadada yari aad sameynaysid waa inaad u sameeysaa hadaf iyo qorshayaal aad muxuu ahaayay aad qoratay waa inaad u sameeysataa sidoo kale si caadadaasi ay guul ku gaarsiiso waa inaad bedeshaa deegaankii aad ku noolayd environmentii kugu hareereysnaa ee markii hore aad ku noolayd bedel ee saaxiibadii aad la saaxiibka ahayd ee aad isku dhaweyd bedel si dhaqanka cusub iyo caadada cusub ee la timid aad horumar ka gaadhid oo la saaxiib dad caadadan la saaxiib ah oo ku xidhnaa oo marka hore muxuu ahaayay la saaxiib ah muxuu ahaayay ama cilmigan iyo waxaan aad dhigatay ee aad doonaysid inaad horumar ka gaadho mustaqbalka dhow cid kaaga aqoon badan la saaxiib inta marka la timaadid hadhow toole waqti kooban kadib waxaad arki doontaa adiga oo horumar gaaray hadaba waxa jira iyaguna caadooyin xunxun oo muxuu ahaayay qofku uu qabatimi karo haday tahay muxuu ahaayay qaadka oo kale tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa qofku markan oo caadada xun uu qabatimo in isagana halkii horumar ka gaari lahaa noloshiisu siiro ay noqoto tusaale qofku qaad baaba cunaaba marka uu qofku qaad cunay yahay maxaayadu iska fariisto waqtigiisa uu kaga lumayaa caafimaadkiisa uu kaga lumayaa dhaqaalihiisa uu kaga lumayaa dhaqankiisa uu kaga lumayaa cibaadadiisa way kaga lumaysaa Allahumma salli ala Muhammad bulshada inteedii wanaagsaneed oo dhan uu ka faquuqmaya wuxuu la saaxiibaya bulshada intii xumayd hadhow toole caadadaas uu markii hore ka soo bilaabay isagoo qof caadi ah uu soo bilaabay cunista qaadka ah mustaqbalka waxay gaarsiinaysaa inuu noqdo qof liita oo ummadda ka takooran oo caafimaad ahaan liita oo dhaqaale ahaan liita oo muxuu ahaayay jid ahaan liita oo ilku hayay ka daateen oo wajigu muxuu ahaayay uu iyo muuqaalkiisuba uu dhintay ayuu muxuu ahaayay is arkaya muddo kadib taalidigeed caadada wanaagsanina waxay ku horseedaysaa nuur waxay ku horseedaysaa horumar waxay ku horseedaysaa in aad muxuu ahaayay mustaqbalka dhow aad isbedel wanaagsan oo kugu dhaca markaa tusaale inaga waxa lagu yiri diinteena suban waxay noo dhigtay shuruuc waxayna tiri 24 saacadoodba 5 jeer oo kaliya salaada jamaca lagu tukado masaajidka ha la tago ilaahay ha loo cibaadeysto fantashiru fil ardi wabtaqu min fadlillahi marka inta dhameysana ashanta salaadood dhameysataana ilaahay caabudana galab magaalka oo muxuu ahaayay shaqo taga wabtaqu min fadlillahi fadliga ilaahay raadiya وعادooyinkii yaryaraabay bay soo hoosgelaysaa wasalaadii waqti yar baa lagu siiyay laguma oran 24 saacadood boqolkiiba 50 ama 10 saacadood tuko laguma oran waxa lagu yiri salaada jamaca masaajidka tag gibigeeduba hadii salaada jamaca macal qiimkeega macal eedaamkeeda hadii la isku daro waxa laga yaabaa inta la tukanayay inaan 30 minute inaanay ka badanin 30 minute maxay ka tahay waqtigaagi 30 minute oo haddii joogtaysid aad aakhiro ku helaysid jannada فردوس الأعلى جنة الفردوس الأعلى تكهليسيد waxay waqtiga ka tahay waa inta ay joogsaysay oo muxuu ahaayay ilaahay bariday oo salaad la timid marka caado yar oo waqti yar koobanaad waa ficil aad waqti yar kooban sameynaysid ayaa horumar ku gaarsiin kara if iyo aakhiraba